بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد دعوة يالله هورين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدل هانتين برمضان كريم رمضان مبارك دعوة يالله كسر هذا برنامج كني وهذا علماء نوجه هورين دعوة يالله عاوة وحب برنامج كمرتين جوا الشيخ الأستاذ عبد الفتاح طاهر عيقة وكم قعدير الشيخ عبد التحسيلي وكم ده معلمين تأي قرادة مقالة بورما ugu horeyn daawadayaal sheekha guluusa dhaweeya sheekhana ku soo barnaamijka wada culimada ahlan salaam allah ybarak fiik jazakallahu khairan sheekhana ugu horeyn waxaad naga warantaa ma noo yarfaysaa taariikh nololeedkaagii iyo sidii aad ku bilowday safarka dheer ee barashada quraanka kariimka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amma ba'd waxaan u mahad celinayaa walaalkay Shihabuddin oo igu marti qaaday barnaamijka wada culimada sidoo kale waxaan salaamayaa daawadayaasha barnaamijka Ramadan Mubaarak ayaan leenahay dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantihiin haddii aan si kooban uga warramo taariikh nololeedka ama siiradayda xagga barashada quraanka ah waxaan ka bilaabay magaaladan Boorama iyadoo oo maraaxil u qaybsamayd barashadaydu waqtigii looxa lagu baran jiray ayaan ka bilaabay malcaamadii ugu horeysay aan dhigan jiray waxaa la odhan jiray malcaamadda Sheekh Aw Cabdi oo aan ku baran jirnay looxi waxaan islahayd waa yaraan uun ilaa dhowr iyo 9 intii aan ka xasuustay inay dhowr iyo 9 kii ahayd ma qiyaasaya waayo sida caadada waxa weeyaan markuu qofku reed dhaqaajiyay inaga waxa la geeyaa dadka madaarista marka malcaamadda Aw Cabdi baan ku bilaabay waxa igu xigtay malcaamad la oran jiray malcaamadda Sheekh Aw Daahir suuratu takwiir ama ida shamsi kuwiirad sida loo yaqaano markii aan marayay ayay gabadh walaashiya iga soo saartay waqtiyadana waxa si wanaagsan magaalada Boorama ugu faafay oo ku cusbaa madaarista tajwiidka oo Sheekh Xuseen iyo macallinkeenaba hadda ah iyo ardaydii u baray oo madaaris badan furatay ayaa thawrada iyo kacdoonkaas ayaa jiray marka walaashay sabab u ahayd inay iga soo saarto malcaamadii Sheekh Aw Daahir ee dambe waxay keentay madrasad Uthman ibn Affan la oran jiray oo uu mas'uul ka ahaa sheekhina Sheekh Maxamed Faarax hadda masaajidkiisa aynu joogno madrasadaas waxay ahayd madrasadii iigu horeysay ee barashada quraanka habka tajwiidka lagu akhrinayo ka baranay marka Ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala madrasadaas ayaan ku dhameeyay waxaan filayaa inay 798 meelaha ahayd waxaa wada dhameynay aniga iyo gabadhba hal mar wada dhameynay ka dareemaysa waqtiga sida ay u yarayd dadka quraanka xifdinaya tayadoodu way iska fiicneed baan dhihi karnaa laakiin sidan hadda madrasadaha boqolaalku ay ka qalin jabinayaan halka mara waqtiyada umay jirino way koobneyd marka qalin jabin dhammaystiranba waxa loo sameeyay aniga gabadha bis waxaan naga horeysay 4 arday anaga waxaan dufcadii labaad madrasada Uthman ibn Affan ee Sheekh Maxamed Faarax hayay ka qalin jabisay ayaan nahay kadib waxoogaa kadib waxaan u imiday Sheekh Xuseen Nuur Qalinle oo sheekhi sababta uu ahaa magaalada Boorama iyo gobolada waqooyi si guudba inuu cilmiga tajwiidka soo gaaro waxaan madrasada Imaam Shaatibi markii loo bixiyay ee ay ku taalay masjidka Huda magaalada Boorama waqtigaas ayaan ku soo aaday oo aan ka mid noqday nasiibna aan u yeeshay inaan arday u noqdo sheekhayga Sheekh Xuseen quraanka marlaad ku celiso on mar labaad ku celiyo tasxiixi madrasadaas ayaan ku dhameeyay masaajidka Huda madrasada ku dhagan baan taraawiixaha iyo aan tuujinaynay salaadaha jahrigaba ah ka bacdi waxaan u intiqaalay oo wareegay dalka Djibouti oo aan waxbarashadii hakadka 2001 taqriiban marka quraanka markaan xifdinaynay in iskoolkii aanu baranay waan joojiyay ahayd Djibouti markaan ku noqday baan waxaan u bilaabay
inaan dib ugu noqdo waxbarashadii anigoo kolkaas qur-aankiina xifdigiisii kusii ilaalinayay masaajidada Jabuuti oon imaam ka ahaa mid ka mida oo masjidka Hayatul Muntada la oran jiray dhinaca kalena waxbarashadii ayaan dib uga soo bilaabay Jabuuti waxaan joogay taqriiban ilaa 5 sano waxaan ka noqday macallin madaaris kala duwan oo madrasada Zaad la oran jiray iyo madrasada Imaam Shaafici la yiraahdo oo طبعا waxaan dadka baray ahaydun macallinimadii quraanka ina waxaan ka tagay Jabuuti 2007 taqriiban oo aan tagay dalka Masar ilaa aan ka imanayay marka Boorama ku soo noqonay 2016 waxaan joogay dalkaasi Masar oo aan ka baranayay macadka qiraa'aadka ee Azharta iyo waxbarasho kale baan ka dhiganayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaasna iigu suurtay safarka intaas oo dhan wali waxaad baranaysaa quraanka weey mastarta macal waxaad sii gashay quraanka miyaa mastarta hadda baan ku dhex jiraa waxaan sheegay wadanka Masar markaad qabatay quraankaad bilowday Masar markaan tagayna quraanka ka dhiganay halkaan oo dul istaagayna 2007 ilaa 2016 waa muddo gaaraysa 10 sano bal qiraa'aadkii sidoo baratay iyo wixii kale fi halka labtirkeeda runtii kolkii Masar aan joogay hadafka ugu weyn ismaan lahayn quraanka ayaa takhasus ku qaadan doontaa qismiga qiraa'aadka laakiin waxaan u baran jiray habka riwaayaadka marka riwaayo ayaan culimada ugu tagi jirnay ku kor akhrin jirnay in saaxiib aan ahayn oo Sheekh Mahad la yiraahdo ayaa wuxuu igu dhiiri galiyay inaan takhasus ka dhigto cilmiga qiraa'aadka jaamacad kalena waan dhiganay quraankana riwaayo ayaan ugu tagi jirnay culimada waan isku waday naam kolkii dambe waxaan bilaabay inaan u wada wareego ama aan u go'o macadkii qiraa'aadka iyo sheekhaygii Sheekh Cabdiraxmaan Kasaab raxmatullaahi calayhi oo geeriyooday in aan quraanka casharada ku kor jamciyo runtii waxbarashadii kale aan ku garab waday quraanku waxay ahayd waxbarashada islaamiga laakiin kolkii dambe aan dhadhansaday aan macaansaday aan aad uga helay takhasuskan qiraa'aadka waxaan tamaniyay waqtigayga oo dhanba inaan baran lahaa uun qiraa'aadka oo aanan ku lumin lahayn daraasaadkii kale aan garab waday marka waxaan ku soo qaatay caaliyatul qiraa'aadka macadka qiraa'aadka Azharta jamciga qiraa'aadkana waxaan ku kor akhriyay Sheekh Leeda Cabdiraxmaan Kasaab oo geeriyooday raxmatullaahi calayhi oo kamid ahaa lajnada muraajacada musxafka shariifka ee dalka Masar waxaan ka soo wareegay 2016 halkaana marxalo kale oo iyadna xadiiskeeda leh oo macallinimadii lahayd ayaa iyaduna halkaas iga bilaabantay qofka sheekh isagu jecel inuu quraanka barto waliba inuu qiraa'aadka sii barto quraanka xifdiyay bal habku ugu fudud ee uu ku baran karo qiraa'aadka iyo wasaayisha ka caawinaysa inuu qiraa'aadka barto maxaa la oran karaa sheekh ama dariiqada uu rabo inuu raaco maro bismillah kulli asaaliibta iyo turuqda ay macallimiintu ay u gudbinayaan barista qiraa'aadka ama barista quraanka way ku kala duwan yihiin waxa laga yaabaa waxa weeyaan min muallim li aakhar inay ku kala duwanaadaan asaaliibta anigu markii aan imiday 2016 magaalada Boorama waxaan imiday iyadoo qof 7 qiraa'o haysta una jirin qof 10 qiraa'o ijaaza ku haystana una jirin marka qiraa'adka 10kii waxa weeyaan qiraa'atu Imam Naafi' ibn Kathir Abu Amr ibn Amir iyo Aasim Hamza Kisaa'i Abu Ja'far Yaqub iyo Khalaf al-Ashir marka waa 10ka qiraa'o mid kastaba laba raawi ayuu leeyahay marka waxay noqonayaan ruwaadiina 20 qiraa'aadkiina waxay noqonayaan 10 ayay noqonayaan marka waxa laga yaabaa ayadaha qaar kood in 10 qaab loo kala akhriyo wali yani meelaha khilaafaadka quraanka ku imanaya meel 10 qaab loo akhriyo kuma jirto laakiin kala duwanaanshaha ugu badan ee gaari kara taqriiban 6 mar way noqon kartaa ina 6 mar la bedelo laakiin 10 mar meel la bedelayo kuma jirto
qiraa'aadkii baa kala duwan, waxna way isku waafaqayaan, waxna way ku kala duwanaanayaan. ardayga sheekh quraanka isaga baranaya ee quraanka xifdintiisa wada ma fiican tahay in marka quraankooda laftirkiisa lagu dhiirigeliyo inuu hadhowna uu sii wado oo uu sii gudbo qiraa'aadkii iyo waxa haboon in marka uu xifdiga ku bilaabo uu xifdiyo uu sugo? oo runtii wallahi wax lagu farxaa in uu cilmigii qiraa'aadku aad dalka ugu intishaaray magaalooyinkii, yani heer waxaynu maraynaa lagu tartamo qiraa'aadkii akhriskiisa iyo tatbiiqii quraanka oo musaabaqada Hargeysa ka dhacda aad ku aragtaan. waxaa kale oo iyadna wax lagu farxaa in ardaydu ay mutuunta xifdigoodiina ay ku tartamaan, oo waxaan magaalada Boorama ku qabanaa musaabaqa la yiraahdo musaabaqatul mawaahib limutuun at-tajwiid wal qiraa'at oo sanadkan Ramadaanta 3 jirsanaysa. marka ardaydii quraankii xifdigiisii ay ku tartameen oo ay ku tafanuneen qiraa'aadkii ay arkayaan dadkii baranayay, bal mutuuntii iyo qawaacidii qiraa'aadka ay xifdinayaan. waxaan isleeyahay yani jawiga iyo ajwaada iyo sawradaasi cilmiga hadda cusub ayaa dhiirigelin ugu filanba qof kastoo ardayo hadda quraanka xifdinaya. waxaan isleeyahay yani qof kastoo xifdiga quraanka hadda xifdiyay xiisana wuu u qabaa inuu qiraa'aadkii barto, oo sidii beriyihii hore yani si ka badan ayay noo warsadaan dadku xagga xiisaha ay u qabaan iyo barashada ay u qabaan qiraa'aadka. marka taas waxaan isleeyahay yani ajwaada iyo sawradaasi xagga barashada qiraa'aadka ee dalka ku soo korodhay iyo tartamadaasi qawaacida cilmiga iyo manduumaadka iyo tatbiiqaba lagu tartamayo waa ay ku filan tahay inay dhiiri geliso ardayda quraanka xifdinaysa. maslada shaqinta kaga hadhay noloshada cumrigaaga quraanka sii wado ku saddex jirkiisii qayb weyn ka geyso. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan horta thabaat weydiisanaynaa iyo inuu noo daa'imiyo nicmadaas. runtii waa nicmo weyn inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aad macalinka noqoto oo aad dadka u dhigto. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanayaa inuu igu sugo marnaba inaan badiil ka raadsado oo aan shaqo ka duwan shaqada quraanka aan qabto haddaan u baahanahay haddaanan u baahnaynba lagama yaabo inaan ka dhex baxo. oo runtii hadda 9 bilood ee ugu dambeysay ayaa waxoogaa waxaan ka dhex maqnaa xalqadaydii aan qiraa'aadka u dhigayay anoo kaga yar mashquulsanaa yani tasjiil quraanka oo aan sameynayay. 9 bilood yani culayska iyo caajiska aan dareemay ma malayn karaysid. markasta waxaan dhahaa ardaydii sida ugu degdeg baan isugu soo noqonaynaa. marka ka dhex bixid iyada ma rajaynayno, waana sunnihii waxa weeyaan salafkeena iyo macallimiinteena aan ka baranay oo Sheekh Xuseen ay ugu horeeyaan. haddii iyaga ilaa hadda ku dhex jiraan annagoo dhalinyara waqti aan ka galbano lama joogaan islaahay. ilaahayna anagu nooleeyo hana nagu dilo insha Allah. daawadayaal intaas waxaan ku saafmeerinaa barnaamijkeennii Waadha Culimada oo caawa martiinagu ahaa Sheekh Cabdilfataax Daahir Cige oo kamid ah macallimiinta iyo quraada magaalada Boorama. inteena ka bixin waxaanu sheekha ka codsanaynaa bal aayad kamid ah aayadaha quraanka kariimka oo 6 ama 5 jeer la bedelayo oo 6 riwaayad ama 6 qiraa'o inagu akhrin doona inagu codkiisana aad ugu raaxaysan doona. sheekh tafadhal sheekhana. awsha waa hawl dheer waxaan noo akhrin doonaa insha Allah aayad ama 2 aayadood oo insha Allah taala quraana laakiin waxaan ku akhrin doonaa maadaama qiraa'ada iyo riwaayad la soo hadal qaaday riwaayatu warsh baan idinku akhrin doonaa insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جزاك الله خيرا. داوديال انتاس اين كسفمرنا الغدين يعاوه. بارك الله فيك. جزاك الله.